السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالين وعن ونكسر صاحبيال ميل ولي بدوك كجوكتان مانتها كسر وهذا مانتيو برنامج كينا قدر شو وأنا أنت بدنا كسر قادرنا وحيابها دعوين كعالم كدعاء هضيعان لهاين ليابك الدنيا ذا يا فلامتي يا عياره يقوى كلو بدنبه waxaanu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa wararkii aflaamta Hindiga ee Bollywoodka iyo kuwii Mareykanka ee Hollywoodka iyo waliba sheeko xiiso leh oo ku saabsan mid kamid ah aktarada caanka ah ee Hindiya oo lagu magacaabo Tabu oo ah gabar kamid ah gabdhaha waqtigoodii Hindiya ugu quruxda badnayd ee markay filimadu jilayso indhaha inta la raaco aan laga jeesan karin oo eedeysay aktarka caanka ah Ajay Devgan aktaradtuna ayaa Ajay Devgan ku eedeysay inuu isagu ka dambeeyay in da'dan ay maanta jirto in ay doob ku sii ahaato oo aan wali la guursan warmuxuu ku sameeyay Ajay Devgan gabadhu Tabu ah hadaba aktarka caanka Ajay Devgan wuxuu helayaa eedeyn baan oo kaga imaanaysa mid kamid ah atriishooyinka Hindiya hadaba waxyaabay ka dambeeyay arkaabaan u eegi doonaa iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa maanta oo ku saabsan filimada Mareykanka aktarka caanka ee John Cena oo keenaya filim aad u khatar badan dibna ugu soo noqday filimada gabadha u dhalay Dalamdra lana dhalatay labada walaal ee Sunny Doll iyo Baby Doll oo labaysatay iyo qodobo kale oo ay ku jiraan Amitabh Bachchan oo loo dhacay walibana la ciibaystay iyo qodobo kale baan ku soo qaadan doonaa maanta barnaamijkeena kan maanta waan aflaameynayna asxaabeeya reerka Maldari waan ogahay qaarkood ba iska kab kasta gashta oo yaani filimadan ku fiican oo ciyaaraha ku fiican oo xaqana ku roon oo inta ku roon oo intana ku roon marka ragba waa sidee dadka qaar marka waa channelkan maadaama sport yahay hadda dad waxa jira sportiga un sugta iyo dad kale waxa jira kab kasta kula gashanaya hadda hindeynaysa kula hindeynaya ciyaareynaya kabi kale kuwa kab kula gashanayaba hadda maanta ma waan hindeynaynayo qaybteena qadar show waxaan ku soo qaadan doonaa maanta sheeko xiiso badan oo ku saabsan gabar aktarad ah oo ka dacwoonaysa aktarka caanka ah ee Ajay Devgan hadaba aktarada taasu aktarad kale ma aha waa mid kamid ah aktriishooyinka ugu quruxda badnaa waqtigeeda Hindiya waana gabar dadka filimada Hindiya aad u garanaya ee daawada ay garanayaan waana aktarada caanka ee Tabu waxay leedahay aktarada tanu Tabu 47 jir baan ahay inaan daadan 47 jir nin la'aan aan ku noqdo waxa ka dambeeyay aktarka caanka Ajay Devgan bay leedahay aktaradan hadda 47 jir ayaa kamid ah aktarooyinka caanka Hindiya ee aan wili guursan waxa jira hadda qaarkii iskuuloodka ahaayeen biriga atriishadu tanu soo bixisay Tabu atriishooyin badan oo soo baxbaa jira oo ilmo dhalay ilmahoodina maanta filimo ay jilayaan iyadu ay la jiliyeen arkayso marka Tabu oo 47 jira ayaa wax laga weydiiyay war maxay tahay doobnimada raagtay ee waqtiga dheer ee 47 jirka aad ku tahay ee aadan wali guursan war maxaa dhacay Tabu baa lagu yiri hadaba aktaradu ayaa eed dusha kaga tuurtay ninka waqti badan isla soo shaqeeyeen aktarka caanka ee Ajay Devgan Tabu iyo Ajay Devgan ayaa keenay filimo aad u xiiso badan oo loo riyaaqay waxaana filimkii ugu dambeeyay isla keenin uu ahaa filimkii Golmaal Again ee uu waday ninka Rohit Shetty ah hadaba aktaradan Tabu ah oo wax laga weydiiyay sababta ka dambeysay doobnimadeeda ayaa ka sheekaysay inuu ku lug leeyahay ninkan Ajay Devgan oo isla soo shaqeeyeen sagaashameeyadii waxaana filimada isla keenay kamid ahaa filimkii Vijay Baad oo ahaa filimkii ugu horeeyay iyo meeshii ugu horeeyay isku arkeen tani markaasna waxay ahaayeen laba saaxiib oo aad isugu dhow hadaba sababta ka dambeysay doobnimadeedu waxay sheegtay ee ilaa 47 jir lagu guursan lahay waxay cadeysay aktarada Tabu waxay tiri anigu iyo Ajay waxaan saaxiib ahayn muddo 25 sano ah adeerkay ayay diris ahaayeen waliba saaxiib dhow ahaayeen bay leedahay wayna isla soo wada koreen markii aan anigu yaraabay tiri Samir oo adeerkeeda iyo Ajay labadooda way ijaajuusi jireen bay tiri marka aan jidka marayo waxay u hanjibi jireen wiilal kasta oo raba in anigu ila hadlaan moogtahay marka gabdhuhu jidka marayaan waa la fufurinayaayo ariya gabaray war maxamed ugu tuurtid waa wax kala tahay wax laga ma qaban karayo umba gabdhuhu waa lagu tuurtuura marka jidka marayaan marka waxay tiri adeerkay iyo Ajay maadaama ay saaxiib ahaayeen marka aan wadada marayo oo aan socdo way daba taagnaan jireen ijaajuusi jireen yaani gadaashay soo daba socon jireen mid walba oo raba inuu shukaansado oo ilaha saaba oo hadal igu tuurtuura waxa meesha u taagan bay tiri Ajay iyo adeerkay oo mar walba la dagaalaya ugu hanjabay inay dilayaan oo ay garaacayaan marka hadiiba aan maanta aan wali doobahay anigoo 47 jir bay leedahay waa sababta Ajay Devgan bay leedahay asagu sababtiisa baan maanta doob ku ahay maxaa yeelay bay leedahay way kaftabaysaa haddaan maanta doob ahay oo aan 47 jir wali aan guursan aan ahay sababta Ajay Devgan baan doob ku ahay bay leedahay maxaa yeelay isagu ayaa ka dambeeyay bay leedahay inaan waqtigan doob ahdo hadii uu ii fasixi lahaa bariyaha dhalinyarada yar iska shukaansan lahayd saxadna marna guursan lahaa bay tiri ee maxaan bal hadla dhalinyaradu asaga jidka u taagan iyo adeerkay oo la dagaalaya mar baan kula kaftama bay tiri Ajay maalin ba waxaan u sheegay war ii keen wiil ii guursada
marka aktarada caanka ee Taboo waxay cadeysay Ajay Devgan inuu ahaa ninka ka dambeeyay in xilligan ay doobsi ahaato waa aktarad caan ah wali aan la guursan marka waxay sheegtay oo ay ku kaftantay berigii ay yareed iyadoo Ajay saaxiibay ahaayeen walibana Ajay adeerkeed ay jaajuusi jireen wiilka soo la hadlana ay ka celin jireen oo ay uga hanjibin jireen inay dilayaan ama ay garaacayaan marka wiilashii dhabiga ay hor istaag bay tiri oo yaab ay guursanaya haddaan maanta doob Ajay dartiis baan doob wahabay leedahay labadan aktar ayaa kulmay sanadii 1994 waxaanay ku kulmeen filimkii Fijaybad waana filimka Soomaalidu yaqaan Ajay Taynis ee okiyaalaha wato markaas Taboo haddaad aragto dhalinyarnimadeeda الله يعني عمامده كهيسة كريمبا وحي هيد ميت كمية أتريشوي كل لوجو تشلا واللي بالصومالي دو بريجا وداوين جرين في الأوقات كأودا ودا الصومالي دو تابو بريجا هذا ودي بقول نقطة فيلم كيساش أفرتي لكن أنت في جيبة أجي ديفغان وحوها ميت كمية فيلم هذه أي آت كأوقر في بدنت يكسو بحي سبيهيد تان إيه مركزنا حلوين بان نقد حبيتري أجي ديفغان أو صاحب دوبان وحين بيتري فيلم كي قدام بيت لكن وحوها فيلم كي جول مال أجين هذا بقى هدي أجي ديفغان كو إليسي إنه يسوي قدام بيجي إن أي وقت كان دوب حاته وحن إيه إن أكتر بدن oo soo shukaansaday gabadhu tan ee lagu magacaabo Taboo waxa la sheegay Ajay Devgan inuu ku jirin ku iyadu soo shukaansaday laakiin saaxiib dhow ay ahaayeen oo ay waqtiga caruurnimadooda aad isu garanayeen laakiin waxa jira aktar kamid ah kuwa Bollywoodka ragga ah ee gabadhu tan soo shukaansaday hadaba waan isii raacinaynayo aktaradii soo shukaansaday gabadhu tan Taboo waxa la ogyahay waligeedba in ay xiriir jecel soo sameysay laakiin aan waligeedba aynan guursan hadaba aktaradii soo shukaansaday waxa kamid ah aktarka caanka Sanjay Kapoor hadaba aktarka caanka Sanjay Kapoor iyo Taboo ayaa is afgartay oo aad isku afahmay markii ay bilaabayeen duubista filimkii Prem labadan ayaa waqtiga bilaabay inay shukaansadaan labadooduna waqti badan bay wada socdeen wallow mar dambe ay kala tageen oo xataa mar dambe filim ay dib isla keenin Sanjay Kapoor marka waxa lagu tiriyaa aktarada soo shukaansaday gabadha tan uu ilaa hadobnimada ku jirta ee Taboo sidoo kalena director caan ah oo la yiraahdo Sajid Najwala oo hore loo sheegay inuu waxa u qabay gabadhii geeriyootay ee Devya Bharti ayaa mar waxa uu isku dayay inuu xiriir cusub dib u bilaabo waxaan isku dayay inuu gabadhan xiriir la sameeyo kadib markii xaaskiisa ay geeriyootay laakiin waxay qarqariyaan xiriirkooda mar dambe dib u soo baxayo halkaas bay ku kala hareen ninkan filimada sameeyay directorka iyo producerka ah Najwala iyo Taboo waliba sida weyn aktarka in badan gabadha tan lagu xantay aadka u soo shukaansaday ama waqti dheer ay soo wada socdeen waxa loo arkaa inuu yahay aktarka koonfurta Hindiya ninka lagu magacaabo Akina Nagarjuna waa ninkan aad wada taqaanaan horey naag buu qabay markuu bilaabayay shukaansiga Taboo labadooduna xiriir baa u dhaxeeyay muddo dheer ayay ishukaansanayeen oo waxa la sheegay muddo 10 sano ay isdaba socdeen Taboo ayaa markii dambe go'aansatay ninkan inuusan naagtiisa ka tagin waxay naftiisa ka dhaadhicisay Taboo in ninkan maadaama nagtiisa ka tagayn xiriirka ay baabi'iso oo in dib dambe ugu laaban maxay wuxuu isleeyay ninkan nagtiisa uu ku goynaya kadibna adiga ayuu ku soo go'aya markay aragtay ninkan uu nagtiisa ka tagayn ama uu xiriirkaas goynin go'aan bay ku gaartay inay kala tagaan haddaba intaa ku dhaafno qaybtii gabadha ku soo eedeysay Ajay Devgan in isagu dartii ayaan maanta u guursan iyadoo 47 jir ah maxaa yeelay berigii yaraa waa dhibi jiray tiriyo wiilashii la hadli lahaaba isaga iga hor istaagi jiray haddaan doob isagu dartii baan maanta doob u hayo isaga ka dambeeyay leedahay waa ka actress soo shukaansadana kuwa kaba kamid ah Taboo waa mid kamid ah atrishooyinka Hindiya ugu caansan ee aan wali guursan bal markana wararka ugu waaweyn aflaamta Hindiga ee maanta dan hore u sii raaciyana waxa kamid ah iyo wararka Bollywoodka ay qorayaan haddaba aktarka caanka ee Barbas ee jilay filimkii Bahubali ee aadka loo jeclaaday Soomaalidu ay aad ugu heleen oo labada qayb ahaa ayaa hadda soo wada film action ah oo la yiraahdo Saho waxaana filimkan la wada gabadha lagu magacaabo Sharada Kapoor u dhalay aktarkii caanka ee Shakti Kapoor filimkan ayaa wuxuu soo bixi doonaa 15 bisha August ayuu soo bixi doonaayo waxaana filimkan sidoo kale wax ka jiraya aktarka weyn ee Jeka Sharif filimkan action baa ku dhamaadayo ninkan Bahubali soo jilay ee Barbas film uu keenay ee aan khatar badnay ma jirto filimkan wuxuu sameeyay action aan inaba caadi ahayn waxa laga soo saaray muuqaal yar oo kooban oo boorsamiinto soconaysa 90 ilbirqsi oo lagu soo koobay ahmiyada filimkan iyo actionada ku jira 15 Agosto 2019 inuu filimkan soo bixi doonaayo hadda waa kayo ninkan Barbas ah ee jilay filimkii Bahubali waa kanay soo wada filim kale aad u khatar badan oo action ah aad baad ula dhacaysa filimkan Saho ee isaga iyo gabadha Shakti Kapoor ay wadaan Jeka Sharifna uu ku jiro ka aktarka John Cena ee lagu bartay inuu ciyaaro musaaricada Master John Cena ayaa hadda ku faraxsan inuu qayb ka noqdo filimka Fast and Furious 9 oo ah filim aad loo soo jiray waqti dheer waqti badanna soo socdayo qayb badan lahaa qada qayb 9 sanadkan waxa lagu soo daray inuu wax ka jiro aktarka John Cena waxaanu Cena u cadeeyay inuu ku faraxsan yahay inuu filimkan la jiro ninka waqtiga dheer filimka soo jiray Van Diesel iyo Michael Rodriguez Fast and Furious 9 waxa la filayay inuu soo baxo
labaatanka bisha May 2020 inuu soo baxay ayaa filimkan la rajeynayo marka John Cena musaaracada loogu bartay aad buu ugu faraxsan yahay inuu qayb ka noqdo aktarada wax ka jili doona filimkan Fast and Furious 9. eesha dolna gabadha uu dhalay Dalamdra ee ay iska dhaleen Dalamdra iyo Hema Malina lana dhalatay aktarada Baby Doll iyo Sunny Doll ayaa labaysatayo waxa iyadu iyo ninkeedu Bahara Tekane ay ku faraxsan yihiin in isniintii toddobaadkan loo dhalay canugoodii labaad waxaanay gabadha u bixiyeen Maria Takhtani haddaba aktaradan caanka ah aktara iska dhaleen lana dhalatay ayaa canugeedu ugu horeeyay waxay ninkan u dhashay 3 Oktoobar 2007 haddana waa u labaysay oo midkii labaad bay dhashiyo baraha bulshada kula wadaagtay. Amitabh Bachchan ayaa toddobaadkan arin cajiib la kulmay oo lagu keenay doorka bartiisii ayaa la jabsaday ee Twitterka iyadoo lagu soo qoraal gareeyay waxyaabo ceeb ah oo xun haddaba aktarka caanka ah ee Amitabh Bachchan ayaa toddobaadka kanu bartiisa la jabsaday walibana waxay warar ku leeyihiin waxa jabsigan ka dambeeyay leeyahay qoliyo Pakistani ah oo hakara ah waxaanay ku soo qoreen waxyaabo ay ninkanu dadka ugu dirayaan waxa xitaa kamid ah waxyaabo ay ku soo qoreen nimanka Pakistaniyiinta ah in uu leeyahay ayagoo Amitabh Bachchan iska dhigay bartiisa waxay ku soo qoreen dawladda India si xun bay u weerareen si xun bay ula kaceen muslimiintii soona bishii Ramadan yani waxa loo geeyay Hindiya qoomiyado kala duwan muslim iyo kuwa kale diin kala leh inay joogaan waxay kuwan ku soo qoreen in Amitabh Bachchan ka soo horjeeday muujinayaan muslimiintii ay kuwa Hinduuda weerareen waliba in dawladda Hindiya ay si xun ula dhaqantay ama si xun ay u weerartay muslimiintii soona ay cibaadeysanay bishii Ramadan waliba waxay ka saareen sawirkii Cali Dheere waxaanay soo galeen sawirka ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan ninka la yiraahdo Imran Khan walow mar dambe Amitabh Bachchan uu dib u soo ceshay bartiisa Bibi Shahbazuna waxay ku faraxsan tahay oo ay aad ugu hambalyeysay ninkeeda Karan Singh Grover inuu dib ugu soo noqday telefishinada oo dib u bilaabay doono musalsalada waa nin ku soo baxay musalsalada waxaanu gursaday gabadhan caanka ah ee Bibi Shahbazu hadda dib ay ugu soo noqday musalsalada waxaanu soo wadaa musalsal la yiraahdo Kisatu Sinti Ki Report Salman Khan oo maalin dhaweed u soo baxay filimka Bharat lacag badan u soo xareeyay ayaa hadda la soo warinaya Kick Tuna inuu isagu keeni doono walibana director filimkan looga dhigay ninka caanka ah ee lagu magacaabo Sajid Nadwala Kick oo hore u soo baxay qaybtiisa labaadna waxa hadda la jili doonta gabadhii filimka hore ku jirtay ee lagu magacaabo Jacqueline Fernandez mishkiini qadar show maanta intaaba ku gabagabeynayna nabadgelyo.